qofka hadday gasho rumaysto inuu ilaahay uu arkayo waxa kale oo dhami way hagaagaan waxay culamada taariikh wariyaan cumar bin al-Khattab waqtigii uu amiirul mu'miniinka ahaa buu habeenkii intuu ninka haysto ayuu wuxuu soo mari jiray xaafadaha iyo dadka wuxuu eegi jiray bal cid cabanaysa wax dhib oo jira kormeer habeen buu soo socday dabeetana wuxuu maqlay xaafad inan iyo hooyadeeda wada hadlaya islaanta waxay tidhi nacaanihi biya ma ku dartay nacaanihii suuqa aroorta la geynayay ayay salaatu rabtaa in la barxo biyo lagu daro markaasa inantay waxay tidhi hooye cumar baa mamnuucay oo yidhi lama ogola caanaha in biyo lagu daro islaantii baa waxay tidhi ina amiir اlmuminiina laa yaraaka lan laa yaraaki lan amiir اlmuminiinku de hadda ku arki maaye tiri shaqada inoo qabo amiir اlmuminiinku hadda ina arki maaye shaqada qabo bay tiri inantii baa waxay tidhi ida kana amiir اlmuminiina laa yaraana faina rabu amiir اlmuminiina yaraana haddaan madaxweynuhu ina arkaynin amiir اlmuminiinka rabbigii baa ina arkaya bay tihi ilaahay baa ina arkaya sidaa awgeed ma suurtagala bay tidhi inaan markuu amiir اlmuminiinku ama ilaahay marka dadku joogaanna inaan ateeco markaan keli u baxana inaan caasiya suurtagal maaha marka dadku ay arkayaanna inaan ilahay ka cabsado aanan caanaa barxin marka aan gaar u baxana inaan wax barxa suurtagal maaha waxay yidhaahdaan cumar baa guriga albaabkiisi buu calaamadiyey dabeetana waraysi buu doonay war reerkaasi waa kuwama reerkii baa loo sheegay inantii baa looga warramay inantaa miyaa la qabaa may inamadiisi ba isugu yeadhay dabeetana wuxu war yaadhe anigu nin weynoo da-ano hadda dumar warkood ma hadal hayo laakiin haddaa cid un guursanaysaan reerkaa inanta joogtaa waa inaan ilaahay ka cabsanaysee warardo taa guursada inamadiisi mid ka mida baa guursaday waxay dhahdaan waa cidduu ka tafiirmay bay dhahaan cumar bin cabdilcaziiz amiiru lmuminiinkii cadaaladda badnaaye iyaga ka dambeeyey waa tafiirtii gabadhaa yar baa la yidhahdaa oo habeenkaa dhegaysanayey cumar bin khataab waxaynu uga dan leenahay haddii uu qofku ilaahay cabsidiisa ku waaweynaato oo uu cibaadadiisa ixsaan ula yimaado cibaadadaasa waxay keensanaysaa inay xumaha kale o dhan ka reebto iyadaa keensanaysa hadday salaadiisu dhab noqoto uu rabbigii habeenkii ku xidhmo waxay dhahdaan markii waktiyadii hore nin baa ay qola saxaabi yidhahdaa ninka hebel habeenkiina salaadu tukadaa maalintiina waxbuu yaro qaad qaadaa nebigoo maqlaya calayh isalaatu wasalaam markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sidaa aad sheegaysaan hadday jirto ina salaatuhu satanhaaha buu nebigu yidhi salaaddiisaa ka reebi doontaa yani war kale uma baahna hadduu nin habeenkii intuu istaagan yahay oo rabbigii ku xidhma dabeecada noocaasi ah inuu rabbigii ku xidhan yahay iyadaa samayn doonta buu nebigu leeyahy inay noloshiisa kantaroosho oo gacantiisa kantaroosho u qof dhowrsan noqdo haddaba ayuha alxiba waxay leenahay meel kastoo aad joogtaan ilahay ku xidhma ku xidhnaantaynu ilahay ku xidhanayna xidhnaan dhadhan samaynaysa aan ku xidhnaano inay cibaadadaynu samaynayna noqoto cibaado macno samaynaysa cibaado aad dareemayso rabu الsamaawaati wاlard biyadihi اlmulk wahuwa calى kuli shayin qadiir inaad ku xidhanto la hadlayso maanta hadday wax yara ku qabsadaan dadku waxa laga yaaba inuu cararo markiiba ka fekero wartalow yaa igu dhowaan u taga saaxiib qaraabo tol ya waxba albaab ka dhow baa jira haddaad barato albaab haniya oo wax waliba agtiisa yaalino ka dhow baa jira waa intaad habeenkii istaagta inaad rabbiga baridid oo tukatid albaabka ilahay baa ka basharka ka dhow laakiin maadaama maadiyaadku inagu tiro bateen akhiiran waxaynu noqonay dad asbaabtu inu ictimaado unoo sababtu ay u muuqato laakiin rabu الsamaawaati walardi musabibu asbaabka baanu inoo muuqanin sababtaba ilaha fudaydiya idan haddaynu rabno noloshan adduun inay fududaato dadka marka la yidhahdo cibaadaysta caynkan waxay ka fakeraan una isnaadaan dee aakhira loo jeedaa inay ku anfacdo war aakhira uma jeedno tan bay ku anfacaysaa tan aynu joogno aynu rabnaa wixii hagaajin lahaa nolosheenna inay nolosheennan adduunyo shaqadeennu aqoonteennu cilmigeennu caafimaadkeennu tacliinteennu dadnimadeennu inay hagaagtaynu rabnaa waxaynu leenahay waxay ku hagaagaysaa markaynu xidhiidhkeennu ilaahay la leenahay uu qurux badnaado markaynu gaadhno xad ducadeenna rabbi aqbalo markaynu gaadhno xad waxaynu doonayno inuu ilaahay weydiisano xad aynu basharkaba ka maarmi karno oo alunsu maca allahi gaadhno inaynu ilaahay u heshanno oo markaad qur-aanka akrinayso uu dhadhan kuu sameeyo kuu macaanaado oo markaad salaad tukanayso uu kuu macaanaato oo markaad wardinayso ay kuu macaanaato oo cibaadaadku dhadhan kuu sameeyaan oo xumuhu kala qadhaadhaado xumuhu iyo xanta iyo warka torrogta iyo beenta iyo waxaan adduun iyo aakhirato hora wax ka tarin dadku inta badan wuxuu wadaa kuwa psychologiga waxay dhahdaan marar badan baan bini aadamku caqligiisa isticmaalin bay dhahdaan ee bulshada iyo dadka iyo waxaan u arkay iyo waxa uu iskaga dhaqmaa waayo hadduu caqliga isticmaali lahaa bay leeyihin wax badan muu sameeyeen inaan dadku caqliga isticmaalin miyaa u baahan tihin proof soo dadku sigaarka ma cabo muxuu taraa cid tidhi sigaar baa wax tarta miya maqasheen mid caalima mid culamaa mid saynisyahana mid cid tidhi sigaar baa faa'iida le ma maqasheen maya waxyeelle ma leeyahy dee kuwa soo sameeyaa dusha kaga qoray sigaarka dushiisa maxaa ku qoran war waa khatar ha isku cabbi
waxaa laga qaadaa kansar iyo waxaase waa khatar cabin baa ku dul qoran dushiisa ku qorantay ka war adigoo arkaya haddii lagu idhaha caagadatan war waa sunna isku cabin aad tirahdo iska yara qurqurinaya caqligu miyuu jiraa mise ma jiro yani caqliga lama isticmaalin idan bini aadamkan aad arkaysaa marar badan buu isagoo caqligiisa qaba uu diidaa inuu isticmaalo oo naftiisa iyo shahwaatu nafsiya waxa iska doondoonayso kale uu isticmaalaya mitala khamri aadana hordhab wuxuu rumaysay one of the poisonous waxyaaba ugu poisonsan dunida inuu ka mid yahay alcoholku waa poison waxba ma taro haddana wadannada aleedin horey u mareen waxay yidhahdeen laba habeen dadku way fasaxayeen inay waashaan shan cashana waa la shaqeeyaa labana waa la waalaadaa waddanka in yaroo ilaalisaa looga tagaa oo la yidhahdo iyagu gaadhkay ku jiraan iyo waxaasay ku jiraan intaasaa waddanka o dhan ilaalinaysa waddanka intiisa kale maxaa yeele labada habeen u fasaxiyeen inay waashaan ka warran dad dhan oo isku waafaqay ummadda inta ugu badan laba habeen ha waalato in yarina hama yar qabto waddanka ha ilaaliso yani ma caqligaa la isticmaalay waxaan uga dan leeyahay war diintan iyo cibaadaadkan haddaa si dhaba u raacdaan caqligiina ifi doona caqligiina noqon doona ku garta maxaa wanaaga maxaa xuma ah qur-aanka iyo diintana akhriyaysaa baa dhadhan idiin samayn doonta marka waxaad macaansan doontaa oo dhadhan kuu samaynaysa ilahay dariiqiisan inaad hayso aakhirana kulama sugayse inaad dunida tan ilahay waa abwaabteeda kuugu furo qanaaco kugu siiyo waxaad heshaad ku qanacdo noloshana ay kuu macaanaato samaysmaya idan waxaan leenahay alixsaan fi lcibaada ixsaanka kale laga warramo oo dhan isagaa fura wa waalid ha loo samafalo jaar ha loo samafalo asagoon ha loo samafalo masaakiina waxaasoo dhan waxa fura u ah kani hadduu hagaago xidhiirkaynu ilahay la leenay subxaana wa tacaala oo nebigu markii la weydiiyey uu ku tilmaamay an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak sala allahuma calaa nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilahay jidka quman haynu ugu hanuuniyo wasalaamu calaykum